السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo laabasho wanaagsan dhamaan asxaabta. Now waxaan soo fahanay sida React ay u shaqeyso pageska iyo fileska u generate gareynayo, sababta loo generate gareynayo iyo waxay qabtaan waa aragnay. Laakiin su'aal waxaa taagan oo ah maxay tahay HTML iyo JavaScript isku dhex jira return sidan oo kale valid maaha JavaScript-ga. laakiin waxaa la yiraahdaa waa JSX oo JavaScript-ga ama React-ga ay ku fahmayso. Actually kan browser-ka ma fahmi doono, laakiin waa loo tarjumi doonaa oo waxaa laga dhigi doonaa code JavaScript ah. Basically haddaa fiiriso documentation-ka React JSX markay ka hadlayeen qaabkan u samaysan yahay macnaha JSX-ka qaabkan u samaysan yahay. tusaale hadda h1 oo kale markaa sameynaysid properties class ama waxyaalaha uu qaadanayo attributes-ka, then body maxaa ku jiri doona. tusaale hadda haddii aan rabno inaan sameyno sidan oo kale, haddaan rabno inaan wax u sameyno, waxaan qasbanahay inaan soo import gareyno React si aan u isticmaalno. waxaan dhihi doonaa import React from React. Okay, halahan bisa gaarayna waxaan leenahay marka JSX qaabka u shaqeeya rabaa inaan idin tuso. waxaan dhihi doonaa waxaa soo celisaa React dot create element aan dhihi doonaa create elementiga markaa wuxuu qaataa ilaa 3 shay. kow, maxaa rabtaa inaad sameyso elementiga magaciisa. tusaale waxaan rabnaa inaan soo bandhigno h1 oo kaliya, just ujeedadana waa intaas. comma waxaa laga rabi doonaa properties uu qaadanayo, tusaale class iyo id wixii markaas uu qaadanayo. for now class name aan rabnaa bis inaan gelino. tusaale inaan dhahno class name, let's say heading something like that. Okay, h1 ga maxaa kasoo dhex muuqan doona marka gadaala qori doontaa comma dhihi doontaa meeshaan aan qoraysaa. marka waxaan leedahay hello from JSX code. Alright, save aan dhihi doonaa for now. haddaa ku laabto pagekeyga again aan refresh dhaho, saa u jeedid hello from JSX code. arrinkan dhan waxa uu ka yimaaday in intaan aad tirto oo aad dhahdo h1 then aad dhahdo hello, sorry about that, h1 inaad dhahdo hello from JSX code. Okay, so saa u jeedid marka live easier uu ka dhigay in JSX kadii. laakiin page dhan hadda for now hadda meeshaan fiilis React ku dhisan yahay hadda kan website-ka React official-ka ah, waxaan dhan asaas u qora hataa dhihi lahayd waa very complicated ahaa lahayd. hadda kaliya waxaan sameynayno waa hal h1 oo ah intaas rafaad ka marna kabar. marka haddii HTML ku aragtay marka la qoraayo halaha div iyo components isdhex galaya waa aragteen, marka macquul ma aha lahayn. marka JSX wuxuu ku fududeynaa inaad ku dhex qorto HTML kaaga si toos ah. waxyaalaha kale marka faa'iido uu leeyahay waxaan kamid ah marka tifran h1 waa tusaale waxaan rabnaa soo bandhigno h1 kale. alright, waxyaalo mamnuuca inaa isticmaashaa jiro. tusaale haddaan rabo h1 kale hadda ama h2 haddaa koro inaa ku daro aan dhaho hello from h2, immediately saa u jeedid waxaa ii soo baxay line guduuda oo that means cilad inay jirto. marka haddaa save garay sidaa save garay ciladaas way ku heystaa. haddaa fiiriso maxaa waa cilada, waxaa lagu leeyahay meeshaan aqri must be wrapped with enclosing tag. majeeda fragment waxa la hayaa jiro. sababta waxay tahay haddii aad rabto in line badan aad soo bandhigto in JSX waxaa qasab ah lagu leeyahay inaad ku xirto enclosing tag. enclosing tag muxuu yahay? intaada meeshaan gaarin waxaa sameynaysaa fragment wax la hayo ama div ama waxa aragtay. laakiin for now kana sameysana maadaama aan fragmentiga caadi sameynaa sidaan dhihi doonaa. sidaan maxay ka macno tahay marka? fragmentigan waxa valid ah marka code badan inaad ku qorto. laakiin haddii codekaagu hadda ku sii xisaabtan, haddii codekaagu one line ka badan yahay ma laga ogolaanayo in aad isku daba qorto unless aadan fragmentigan ama enclosing tag aadan dhexgelin. for now save haddaa dhaho still meesha colorkii nooc kale oo noqday daa ujeedaan waxna ma soo baxooyin. why do this? maxay u dhacaysaa sidatan? anagoo wax xalin arag. sababta waxay tahay maadaama lines badan aad soo bandhigaysid sida xasuusta JavaScript-ga if else haduu one line yahay
waliba caadi ma ahaa, laakiin hadii line badan yahay maxaa la rabay in aad furto practice maybe this one is the solution for now. Save adi doona. I think cilada kan inay tahay for now. Save. Okay, why you do this? Okay, so for now saa ujeedid sorry about that, wuxuu rabay line detection inaan sameyno. saa ujeedid meeshaan hello from node.js code iyo hello from h2 si toos usoo baxday. sidoo kale wax kale kusoo diri kartaa inaad dhahdo ispan, then aad dhahdo hello from ispan. Right, so here we go. Nice. marka waxaa hadda isla fahanay in JSX ka uu sidaan u qormo. marka xaaladiis waa fahanay. marka soo barbardhigaysid waa you must inaad inclusion tagan ama aad dhaxgelisaa. sidoo kale kan indentation kan inaad iska saxdo waa very important. kaliya marka loogu talagelin inaad HTML caadi template ku soo bandhigto. waxaa kaloo ku soo bandhigi kartaa JSX ka waxa la yiraahdo expression ama JavaScript expression. JavaScript expression waxaa ka wadaa in aad ku dhex qorto xisaab ama wax caadi JavaScript variable na ku socdo. Tusaale marka variable ama JavaScript valid aad ku soo qoraysid waxa u baahan tahay calaamadan. What I mean by that, tusaale variable aan sameynaa waxaan dhihi doonaa const let's say title or something like that. Post waxyaalaha soo bandhigeynaa. waxaan leenahay this is title. Alright, so waxaan rabaa title kan inaan soo bandhigo maadaama dynamic uu yahay. hadhow data dynamic la macaamili doontaa. hadda for now waa iska daami waxaan sameynayno. marka title kan inaan soo bandhigo rabaa. marka meeshaas aan u soo bandhigo waxaan dhihi doonaa variable magaciisa soo qaadanaa. waxaan dhihi doonaa title. Alright, save adaha. let me see that. good. meeshaan hadda ujeedo waxaa ku soo baxday title. anagana title ma rabin, waxaan rabnay saa ujeedid this is title inay soo baxdo. why ay saa u dhacday? si aad u soo bandhigto code JavaScript ah inside JSX waxaa u baahan tahay inaad bracket ama parentheses ka hormariso. for now save markaa dhaho waa expression sax ah. for now title kan waa aqoonsanaa. saa ujeedid isla markii waa la isticmaaliyo ku leeyahay this is title. let me check again. yeah, great, this is title. that's marka waxa waa qaabka aad JavaScript expression u isticmaasho. sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad xisaabaad soo bandhigto. let's say hadaa dhaho alt shift down meesha hadaa dhaho 8 plus 2 what do you mean 10 ayaa soo baxayso. saa ognahay saa ujeedid maxaa waaye 10. arrinkaas marka waxay ku cadaynaysaa in JSX ka aad ku dhex qori karto code JavaScript ah. misla fahmin arrinkaas. waxaan rabaa marka qorshaha inaad saas ugula fahantaan. JavaScript markaa qoraysid haddii JavaScript u baahato inaad calaamadaas ka hormariso oo bracketka ama parentheses I don't know. danna kan aad dhahdo title. HTML ka caadi markaa qoraysid inaad saas dhahdo. sidoo kale waxaa kuu furan inaad script string caadi ah ku dhex qorto. tusaale meesha inaad dhahdo this is something. save markaa dhaho you can see that muxuu leeyahay this is kadibna waxaa ku xigo title-kii labadiisa sidaad marka farnaa hadaa dhaho heading title something like that wax meaningful oo kale inaan ka dhigno. so feel this is muxuu leeyahay heading title. that means labadan erey ayaa isku xiray. kan waa string caadi ah, kanna waa variable kii oo JSX ka ku soo aragtay. now marka code-kii dhibaatadan badnaa sidaas ku soo koobnay. saa ujeedid siday sameynayaan. arrinta kale oo aan rabo inaan idin xusuusiyo waxa yahay style markaas sameeyaan. tusaale waxaan rabaa inaan class ku daro balkan. styling-ka dib aan ka hadli doonaa laakiin for now class u sameynaa. tusaale waxaan leeyahay class name. class HTML-ka awal hore hadaa ogeedeen class aan dhihi jiray. waxaa la jiray class let's say waxaa la jiray heading oo kale bootstrap ma ku isticmaalay class aan dhihi jiray. for now JSX maxaa dhacay fiir wax isbedel ma jiro. laakiin hadaa furto console-ka inspect element hadaa dhaho aad tagto console-ka meesha cilada jirto fiiriye muxuu ku leeyahay invalid number property class. class-kan lama aqoonsan total. marka react joogto class waa cunaysaa. waxaa ku bedeli doontaa class name. the reason why class waxaa isticmaasho JavaScript ya waxay keyword oo reserved keyword ah oo sida ogtiin classes-kii marka la isticmaala object oriented-ka. si marka JavaScript ay meeshan JSX u aqoonsado meeshan waxaa ku bedeli doontaa
class name. So haddii aad style sameyso oo class name oo heading tusaale haysto styleka waa geli doonaa cashar okay component ka hore kadib waa styling galeynaa. Styling marka gaarno arkayna sida class-yadan loo style gareeyo, laakiin ogow marka class aa wacanaysid class waa ka tagtay waxaa ku bedeli doontaa class name marka React aad joogto arrinkaas xisaabta ku darso then heading aad dhigaysaa. sidoo kale class-yada sida u soconayso tusaalahan ay class-yada wixii markaas u baxsato title wixii markaas adiga design-kaaga ama style-kaaga uu yahay. intaas inaan isla fahanaa rajeynayna. Okay, what else? I think waxaas leeyahay JSX intaas waan ugu filan yahay. wixii su'aal aad qabtaan insha Allah qaybta hoose su'aalaha aad igu soo weydiin kartaan ama commentiska insha Allah wixii aad fahmi weysaan. laakiin waxaan leeyahay intaan waa bilow fiican oo aan ku fahmayno JSX sida uu shaqeeyo. hadda waxaan galeynaa marka sida componentska iyo ay u shaqeeyaan. adama santiin. So next video no balan ah. Goodbye, see you again.